odayaal waxgarad iyo dhalinyaro iyo aqoon-yahanno maanta ku kulmay magaalada tan Muqdisho ayaa waxay eedeyn ballaaran u soo jeediyeen ugaad sheegtay beesha Jidley waliba wasiirka boosada isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur waxayna ku eedeeyeen inuu isku horkeenayo beelweynta Jidley waa kuwana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanada oo goobta ka hadlay Jidley bahaya boqor buu leeyahay nabadoon uu leeyahay culimo uu leeyahay aqoon-yahano leeyahay siyaasiyiin buu leeyahay in ka hadasho oo danta Jidley raadisa badan lama uusan tashanin waxba ma uusan weydiinin go'aan af wiilo dhalinyarada soo kaxaysta asaga u dhaxaystaagay ceebtiisa anaga ma ana jecleen sidoo u dhaqmay waa si aad u falxun naftiisaysan anficin Jidleyna ma anfacdo waxaan Jidley anficina nooma qaadi karo noomana dhihi karo kana yeeli mayno namana midalan taaganayba maxaa yeelay dibkii uu abuuray 2006 doorashadii dibkii asaga uu abuuray iyo fawdadii iyo fadqaladii wali dhex taagan yahay Jidley uu ku sameeyay hadduu raba Jidley inuu kala abtiriyo meel hebla ma degtid iyo meel hebla degtaa waxaasna waxna qabta ma aha raali kama nihin wuxuu calaamay beesha hal gobol inuu ku koobanto caday taasaan anaga ka dhaliisanahay maxay ahaday mana matalo waas wakiil hore u ahay moogi maanta wakiil uu ku yahay oo cilaamin karana ma jirto laga mana tashani beeshii u taala marka waxa waa meesha xildhibaanay wax ka sheegayeen xildhibaanku waxa waa ka sheegi karaan waxba kama qabno kama xigno xildhibaanku waxay rabaan ka sheegaano laakiin beesha in la been abuurto annaga raali kama nihin beesha waxay ku idashahay ayaa soconayo nin aan wakiil ka ahayn mar hore beesha ay ka tala baxday oo wax buu qabo waay oo iska hor keenay waa ugaas wakiil hore wuu ahaay hadeer beesha waa way ka baxday eeyadaa ka tashanayso inuu afartoo ka haysto oo waxaan beesha raali ka inuu ka sii dayo annaga raali kama nihin beeshu ma aha ciyaal banooni dheelaayo meel heblaan ku dheelayna meel helaan ku dheelayna ma aha waa beel sharaf leh waa beel tashi leh waa beel mowqif leh odayaal leh culamo diin leh wax walba leh in waxaan munaasabkeeda iyo sharafteeda ahayn meel la tago waan ka xunaa waan ka raali gelinaa beeshii talabaad waxaan u sheegaynaa odayaashii shalay meesha ka hadlay war waxaad meesha la tagteen wax rag meel uu la taga ma ahayn war maxaa ku koobay Soomaalidu way badan tahay meel walba degan tahay war adigu Soomaalidaad ka mid tahay maxaa kugu koobay inaad untiraayo aniga beledweyne oo ku meel bas hal degma aad ku dhaganaato war maxaa kugu koobay war jawhara degan tahay war baayi bakoora degan tahay war meel walba degan tahay war maxaa isu koobi maxaa dadkaagu xaqiri maxaa dadkaagu sharafta oo qaadi kan noqdaan leena wixii shalay aad meesha la tagteen dhaqanka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda intaba waxaan ogeysiinaynaa Cabdi Naasir ugaas shakhsi Jidley kamida inuu yahay ugaasna inuu sanoo ahayn wakiilla inuu sanoo ahayn tala Jidleyna inaan waxba laga weydiinaynin tala Jidleyna waxba laga weydiinaynin kursi baan waxba laga weydiinaynin doorashaan waxba laga weydiinaynin waxaan dhihi lahaa Cabdi Naasir oo cumri baa joogtaa intii horaa kuugu filan inaad dadka iska hor keento oo dadka aad isku dirto ruux yaani waxa weeye damiir la hadaa tahayna shalay lama aadan soo istaagteen Jidley oo Ilaahayna og yahay Soomaalina og tahay 18 ka gobol ama 8 gobol ee horeba inay wada degaan arinta hadda buuqa abuurmay shalay sidaan warka ku hayno waxa ka dambeeyay ninka la yiraahdo wasiirka beesha Gundhabay ninka la yiraahdo Canshuur waxay ahayd oo fiicneed Canshuur saddex beelood oo Gundhabay la isku yiraahdo wasiiru yahay waxa qabad baa looga fadhiyay meeshu maalinkii wasiirka laga dhigay Gundhabay maraayay inuu meeshii uu maanta taagan yahay sax ahay mayna aadin xilligu qabanayo Gundhabay wasiirba wuxuu lahaa safiir buu lahaa qadar joogad ogtiin maanta ma hayaan inta hadda xilka haya safiirkii waxyaalaha waxa ka mid safiirkii iyo waxyaalo badan hadda aan midiga u sheegay inuu meeshii wax qabad laga rabay oo ku dhex meeraysto Gundhabay dhexdiisii oo jajal iska hor keeno Jidley iska hor keeno sax ma ahayn arrintaa waan ka waaninaynaa waxaan leenahay wasiir Gundhabay tahay
wax dheefkaadu haduusan jirin waxyeeladaadu ayna soo gaarin wax dheefkaadu nama soo gaarin waxyeeladaadu ayna soo gaarin wax dheefkaadu uu yar yahay waxyeeladu ha yaraato adoo waxba dheefin dadka isku dirin arrimaha jidla u talaa iyo siyaasiyiintiisa meesha kursiga la geynayo inaad ka wareegato ayaan ku soo jeedinaynaa cabdiraxmaan kambaala goobjoog muqdisho